يقول راحتين شنطة مش هنا يقول راحتين qof kastoo rikaaba qof kastoo meesha dhibaato ku qaba fariintan saa u wadaan gudoomiyaha gobolka dalaq u siiyaan iyo qofkii oo shaqo kale oo meeshan wax ka qaban kara جايني ما أنت $1 ما لي مرسيان ملهن waa wareey bajaajleydii waxay ku ballameen shanta bisha ee ugu soo aadan in ay banaanbax weyn ka samayn doonaan iyagoo ka cabanaya jaamka magaalada ama nidaam darrada magaalada ka jirto waa kan codkooda يقول راحتين شنطة مش هنا يقول راحتين ما تدري عامل سوفو يا رموتين بلان متاهي إن ما sida aad la socotaan shan beri ka hor ayaan soo gudbiyey fariinteyda ama cabashadeyda ah in magaalada jaam aad u daran uu ka jiro sida saybiyaana iyo isbitaalka masaarida luuqiisa wadooyinkaasna lagu xiray xarga dhaadheer oo aan laga gudbi karin maanta waxaan cabasho ka ahay magaalada muqdisho laba wado oo keliya bis kuwa kale oo iskaga dulqaadanayna laba wadaan cabasho ka ahay wadada saybiyaano iyo wadada masaarida maxay keeneen oo dhibaato ah magaalada iyada awalkiiba jaam ahayd wadooyinkana ay iska yaraayeen haddana waxaa lagu daray nidaam darra aad u weyn fariintii maalintii dhawaad ay idiin soo gudbiyey haddii aad maqli weyseen ama idiin soo gaari weysay tan ayaa idiin soo gudbanaya bal dhageysta hadda sida aad la socotaan jakboondiga isbitaalka masaarada ku yaalo khalad aad u weyn ayuu sameeyey kow khaladka waxaa kow ka ah سيبيانا حرقة البحري مصاري حرقة البحري وطلعن أو متقنا بالكي شمال السودان اسكي وارت دباتك جدا حاس meeshii la rabay gawaarida in ay midig aadaan waxaa la aadiyey bidix iyagoo raba in ay u leexdaan dhanka luuqa taas waxay kaliftay in wixii kala gudbi jiray ama jidkaas tarabuunka mari jiray in ay gudbi waayaan meeshaasna gawaarida ay isku aadiyaan bajaajta ka imaado digfeer isgooskiisa iyo tii ka imaado tarabuunka xaggiisa hal wado oo keliya ay wada maraan magaaladan waa la ogyahay haddii bajaaj iyo gaari la isku sii daayana qof walba tanaasul ma lahan isaga ayaa nafsadiisa u raba in uu gudbo taas marka waxaa ka dhashay ama ka dhashay jaam aad u daran kaas oo magaalada kii ugu xumaa riday markii ay kasoo gudoomaan masaarida inay jaam tahay ay soo ogaadaan bajaajyada waxay soo maraan dhanka luuqa digfeer bajaajyadii kasoo gudoomay masaarida jaamkeeda iyo kuwii kasoo gudoomay tarabuunka jaamkiisa ee meesha gawaarida lagu barta kasoo wareegay waxay isku qabtaan isbitaalka digfeer iritiisa meeshaasna waxaa ka dhashay jaam aad u daran aan aadna dhanka iyo saybiyaano sidoo kale waxaa la sameeyey xarig dheer la xiray gawaaridii isgooska mari jirtay waxaa la soo marsiiyey dhanka kuwii midig mari jiray waxaa la marsiiyey dhanka bidix isgooskii wuxuu noqday isgoos aan la mari karin haddii aad ka imaado dhanka access control in aad isgooska saybiyaana marto oo jaamacadda banaadir ah ka baxda lagama yaabo waxaad mari kartaa oo keliya kor in aad martid wadooyinkaas yaryarka xaafadaha inaad ka dhex baday iyaga naftirkoodana waa bacaad saybiyaana marka dhibaatada ay keentay waxaa kow ka markii isgooska saybiyaana jaam aad u daran uu noqdo bajaajyada way kasoo gudumeen waxay soo maraan jaamacadda banaadir wadooyinkan laga furay ee dhanka soonakey dalcadaas ay soo maraan waxayna kusoo aruuraan isbitaalka digfeer isgooskiisa hortiisa kusoo aruuraan iyadoo awalkii meeshan jaam ahayd haddana kuwii jaamkan kasoo wareegay meeshaas ay iskugu imaadaan meeshaasna waxaa ka dhashay jaamkii ugu xumaa ee abid waxaa isku xirmo saybiyaano digfeer masaarida ilaa iyo tarabuunka ilaa iyo waxaa isku xirma isbitaalka digfeer hortiisa ilaa iyo meesha gawaarida lagu barto wadooyinkaas waxay noqdeen 20 maalmood ee lasoo dhaafay jaamkii ugu xumaa ee abid waxaana sabab u ah ama keenay xariga dheer ee meeshaas lagu xiray ama isgooska la jaray gawaarida dhanka midigay lahaayeen bidix la keenay hadda si video idin kaga muuqata bajaajyada waa ay ka mudaaharaadeen dhibaato weyn ay sheegteen cabashadoodu waa in wax laga qabtaa isbitaal madiina wadadan buulxuwe dhismaha ka socota ma la mari karo isbitaalka luuqiisa ee madiina isagana wuxuu noqday meel bacaad ah oo aan la wada mari karin gawaaridii iyo mootooyinkii meeshaas ay kasoo baxaan meeshaasna waxay noqotay wado aad dhibaato looga qabo fadlan cabashadana wax ka qabta haddii aan nahay bajaajley كلمتان